ciidamada waqooyi bari Soomaaliya oo si toos ah goordhabeed u soo taabtay duleedka Caynaba halkaasna ka wada dhaqdhaqaaqii ugu xoogganeed kadib markii ciidamada Somaliland ay ku hongoobeen in ay si xooga ku sii maamulaan Caynaba iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada. waxaan idila wadaagi doonaa ciidamada waqooyi bari Soomaaliya oo guulo isdaba ka gaaraya furimaha dagaalka kadib markii dowladda Soomaaliya ciidamo aan caadi ahayn ay u soo dirtay gobolkaasi Sool oo ay qayb ka yihiin sirdoonka Soomaaliya Mahasalaad iyo sidoo kale wasiir fiqi oo ku sugan gudaha waqooyi bari gaar ahaan oo ay mar kale booqdeen ayna xogada kaga helnaa iyagoo wato dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya kuna baaqay in ay u diyaar garoobeen dagaal culus oo ilaa iyo awdal la soo taabanaya maadaama dowladdu ay ku dhawaaqday in si rasmi ah awdal loo aqoonsanayo qorsheedana uu socdo. dowladda Jabuuti oo iyadoo si toos ah u dhabar jabinaysa Somaliland waan eegi doonaa dhanka awdalna ka soo galaysa halka dhinaca Soolna ay ka bilaabayaan ciidanka dowladda iyo waqooyi bari oo isku jira sidoo kalena dhexda ay ka jiraan jamaahiir kale oo iyaduna gudubbeersiya iyo sidoo kale kuwa ciiso iyaguna dhankooda dadaalkii ugu xoogganeed wada dadaalada soconaya sidoo kale qorshahan halkuu ku dambeyn doona iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah isaguna u soo magacaabaya ayaan idin soo gudbin doonaa wasaaradihii ugu farabadneed oo degi doona magaalada Laascaanood oo noqon doonta xarunta ugu weyn ee midnimada dalka marka laga yimaado magaalada caasimadda ee Muqdisho. qodobadaasi sidoo kale qodobo kale ayaynu daawadayaal ku soo qaadan doonaa barnaamij wareedkan ugu horreynta subscribe inoo sar kanaalkeenan aynu ku bilowno. waxaa goordhaweed la xaqiijiyay in ciidamada Somaliland ay isaga hayaameen mar kale aagagii ay kaga sugnaayeen gobolka Sool iyo sidoo kale meelo kala duwan. Caynaba ayaa xilligan la sheegaya sida ila wareedo xilkaas ay xaqiijiyeen in si rasmi ah ciidamada Somaliland ay u faaruujiyeen sida aan xogta ku helnay. dhaqdhaqaaqii ugu xoogganeed ayaana xilligan ka soconaya oo ay wadaan ciidamada jamaahiirta waqooyi bari Soomaaliya sidoo kale kuwa dowladda oo la tilmaamay in saacadii la soo dhaafay ay si xooggan u wadeen dhaqdhaqaaq aan hore loo arkin gobolkaasi. waxay u muuqataa in xaalado cusub ay ka soo cusboonaanayso isla markaasna ciidamada waqooyi bari Soomaaliya ay dadaalkii ugu xoogganeed wadaan. dhinaca kale wasiir Axmed Macalin Fiqi waxaa lagu soo waramayaa in isagu uu wado dadaal aan caadi ahayn oo ku doonayo in waqooyi bari Soomaaliya ilaa iyo gobolka awdal ay soo taabatay isla markaasna Caynaba la isaga gudbo. waxaase xusan mudan inaysan Caynaba tagin isagu la fahantiisa Axmed Macalin Fiqi yeesho uu gaaray tuulooyinka Gumeys iyo sidoo kale oo iyo meelo kala duwan oo aracadeeya. halkaasna waxaa la socday taliye Maxamed Salaad oo isagu deegaan ahaan ka soo jeeda aracadeeye isla markaasna waxaa la tilmaamayaa in sirdoonka Soomaaliya ay si toos ah kaga howlgali doonaan aracadeeye Gumeys ilaa iyo og taasoo halistii ugu xoogganeed ku noqonaysa sida la tilmaamay. boqor Burhaan oo isagu qayb ka boqorada beesha majeerteen ama sidoo kale harti waxaa la tilmaamayaa in isagu door aan caadi ahayn ka qayb qaadanayo arintan. waxaana la sheegayaa sida ila wareedyo muhiim ay xaqiijiyeen in isagu uu qayb ka yahay safarka salaadiinta ku helinaysa taliyaashan nisa booliiska iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi oo ay ku joogaan furimaha dagaal ee aaga gobolkaasi Sool oo la tilmaamay in xaaladuhu ay aad isu soo tarayaan. dhinaca kale waxaa jirta in madaxweyne Firdhiye dhinacaasi sidoo kale Buuhoodle isagu laftiisa ka wado dhaqdhaqaaq aad u xooggan oo la kala baxayo sida hadda laga dheehan karo maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka uu diyaaradda raacay oo kula ballamay raggan mas'uuliyiinta inay qaadaan tallaabooyin waaweyn oo lagu doonayo in qarannimada Soomaaliya lagu difaaco maadaama si babliga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in shuhaado badan oo jamaahiira ee u geeriyootay dagaalkan uuna bogaadinayo. sidoo kalena halkaasi wuxuu tilmaamay in laga sii laba jibaarmo oo deegaanada ugu farabadneed la qabsado sida uu ka sheegay xafladii caleem saarka ahayd shalayto. waxaase dhinaca kale jirta in Somaliland afka juuqda uu gabaya isla markaasna ay u muuqato in awoodoodii guud aad loo dhantaalayay maalmihii ugu dambeysay dadaalada soconayana uu muuqdo kuwa inta badan hirgeli kara sida la tilmaamay. waxaase dhinaca kale iyaduna intaasi sii dheer in xitaa ay jiraan door oo ay ka qaadanayaan mas'uuliyiin sarsaro oo sida la sheegay ka socda dhinacaasi sidoo kale gudubbeersi oo laftooda iyagu aad iskugu diyaarinaya in la soo gaaro gobolkaasi awdal. mas'uuliyiinta waxaa la tilmaamayaa in saacadii ugu dambeysay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la lahaayeen
wadahadallo aada u xoogan oo xitaa shacabku la doonayay in lagu hubeeyo, taas oo meel gabagaba maraysa. waxaase dhinaca kale jirta in iyaduna safiirkii dowladda Soomaaliya ee u fadhiyay dalkaasi Djibouti in isaguna sidoo kale uu ka qayb qaadanayo isku xirka sidii dowladda Djibouti ay aad ciidamadeeda u soo dhoobi lahayd dhankaasi, sidoo kale awdal xaggeeda oo xadka la soo dhaafin lahaa. waana dhabar jabinta la sheegayo in maalmahan ay aad u socotay, waxaana muuqan doonto in guuluhu ay isdaba joog noqon doonaan haddii dowladda Djibouti ay ka dhabayso go-aankeeda dhabar jabinta oo iyadu xitaa keentay shaaxda dagaal ee awdal, maadaama xildhibaano ciise ay sidoo kale gudobeersi oo dowladda Soomaaliya ka tirsan shir jiraa'id oo ay qabanayeen. waxay sheegayaan in Somaliland ay soo ilaatay waayaheedii gooni goosadka, maadaama gudobeersigii ay markan sii xoogeysanayeen dadaalkooda, halka dhinaca kalena dadiyada kale ee gobolada kale ee sida waqooyi bari Soomaaliya iyaguna ay dirayaan tahaniyado waaweyn oo ay ugu dabaaldegayaan guushan cad oo ay gaareen ciidamadu, islamarkaasna ay ku qorsheeyeen in si rasmiya loo hirgeliyo qorshooyinkan iyo sidoo kale nidaamyada caalamiga ah ee degdegsiimada ay ku dheehan tahay la doonaya in maamulo waaweyn lagu dhiso, islamarkaasna Somaliland ay noqoto beesha isaaqo kaliya oo Soomaaliya markaas dan u soo raaci doonto sida ay qabaan. sidoo kalena caasimada labaad ee Soomaaliyana laga wareejin doono sida muuqato Hargeysa, oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay inay noqon doonto magaalada Laascaanood magaalada midnimada ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay waqooyi ka tirsan tahay barina ay xigto, taas oo wadaxan noqon doonto midnimada dadka Soomaaliyeed, hooyina uu noqon doonto. waxaana la sheegayaa in garoomo waaweyn iyo sidoo kale meelo waaweyn oo xarumaha laga dhisi doono magaaladaasi Laascaanood oo ay ku mahadin doonto caasimada waqooyi bari Soomaaliya inay noqoto, islamarkaasna dowladdu kaabayaal iyo sidoo kale horumarinada maamulkaas uu sameyn doono ay door wacan ka qayb qaadan doonto sida la tilmaamay, taas oo qorshaheeda in badan uu soconayay. sidoo kale iyaduna waxaa intaasi sii dheer in 48 saac ee ugu dambeysay sidoo kale ciidamadii Somaliland laftoodu ee cabsida ballaaran soo wajahday, islamarkaasna ka faaruujinayay meelo kala duwan in xitaa ay jireen ciidamo dhowr ah oo xitaa sida la sheegay oo horey uga tirsanaa guutada Mahad Cambaashe laftiisa inay soo dhiibeen. hase yeeshee waxaa la sheegayaa inaan loo dhaqmin sidii maxaabiista kale ciidamada soo dhiiba oo lagu qiyaasay ilaa iyo 27 askari. waxaa la sheegayaa in xitaa miidiyaha loo diiday in loo gudbiyo xogahooda ku gadaaman, maadaama beesha dhulbahantay ka soo jeedaan raggaas, islamarkaasna wada hadallo socday 3 bilood ugu dambeyn ay timid in raggan ay soo dhiibaan sida aan xog ku helayno sida la tilmaamay. guud ahaan daada la naginta barnaamijyadan subscribe na saar nabadgelyo.